walaalayaal waxaan maanta halkan ku qabanaynaa shir jirayd annagoo xisbiga wicid xisbiga wicid sida aad wada ogsoon tihiin wuxuu u turaa dalka waxaanu ka shaqeeyaa danta iyo wada jirka dalka waxaanu necab yahay oo colaad baahsan u hayaa wax alla waxa dalkan dhibay waxaanu halkan idinku xaqiijinaynaa waxyaabaha mala awaalka ee ay ka sheekeeyaan xisbiga wadan ay tahayna mar walba in xaqiiqada laga sheego waliba dadka qaar markay kamaradaha soo istaagayaanna inay maadaama ay dalka la doonayo inay wax wanaagsan oo dadka qancin karaya u sheegaan waxa wanaagsan qofka ibn aadanka ah markuu bulshadiisa doonayo inuu wax ka dhaadhiciyo inuu isagoo saaxiya oo wanaagsan oo wajigiisa ay ka muuqato farxadi inuu soo istaago ma aha inuu soo istaago isagoo si kala oo habeenkii oo dhan soo jeeday fikirkaana ay ku dhalisay uu ka hadlayo in aanu caadi ahayn qofku markuu caadi yahay wuxuu ka hadlaa wax xalaal ah oo runta ku salaysan buu ka hadlaa laakiin qofka aan caadiga ahayn wuxuu ku hadlaa wax mala awaal ah oo ay uga soo sheekeeyeen waxa uu ag fadhiyaa xisbigani mowqif buu lahaa mowqifkuu lahaana waxay ku cad yihiin baraha bulshada tiifiyada waa daawan kartaan waana lagu soo celin karaa wuxuu ahaa mowqifkii rasmiga ah xisbigana uu ahaa inta badan dalkanna waxaad ogtihiin in xisbiga wicid ugu dambaynta la qaato taladiisa go'aamadiisa isku uruurintiisa iyo wada jirka dalka markuu ka shaqaynayo waxa ugu aabbaa guddoomiyaha xisbiga ayaa ugu aabbaa dalkan min bilow ilaa maantoo la taagan yahay wuxuu ka shaqaynayaa waxa weeyaan dalkan wada jirkiisa iyo haddii uu khilaaf yimaado inuu dhex ka noqdo xagga saxdaana la taliyo ka diidan la taliyo hadduu qaadan waayo inay israacaan cidda uu sax u arkaya in israacaan waxa taasina waxay ka mid tahay wada jirka iyo wada noolaanshaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland sulxuna waa mid rasmiya wanaaguna waa mid rasmiya waana mowqifka islaamiga weeye waxa halkan ka muuqda in xisbiga wadani intaba uu diidan yahay uu dhinac yahay ay wuxu muuqdaan waxyaabo markii horena uu ka xanaaqay u muuqdaan haddana uu ka xanaaqi doono waxa u muuqdana ay yihiin meel aynaan garanayn waxa ku jira xisbiga wadani markaa dad ay ku sawiran tahay inuu ka shaqaynayo fadqalada dalkan inuu ka shaqaynayo dhibaato dalkan oo ay u muuqdaan koonfur iyo meel aan la garanayn u muuqdaan inuu iska qabtaana way wanaagsan tahay xisbiga wadani dad wanaagsanna way ku jiraan waxaan halkan ku cadaynayaa xisbiga wicid mowqifkiisu inuu markii horena ahaa mid ilaa markii dambena uu mid qura ahaa waxaanu ku soo koobayaa laba qodob oo kaliya ku soo koobayay waxa weeyaan in komishanka doorashooyinka xisbiyada mucaaridka loogu daro laba xubnood isla markaana xeerka sheegaya in la bedelo qodobkaas oo ah inay doorashooyinku ay dhacaan 2019 xisbiga kulmiya diidana waanu ku qancinay waanu dabagalnay meel walba waanu ka marnay waxaanu ku kicin madaxweyne ku-xigeenadii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa ilaahay raalli ah ka ahaado ilaahay cimrigooda ha dheereeyo ilaahay meel wanaagsan ha mariyo nugula dadaalay waxa laga soo dhaadhiciyay xisbigii kulmiye inuu mowqifka labada xubnood ee loogu darayo xisbiyada mucaaradka qaato wadani wuu nala joogay kii ka shaqaynayay buu ahaa markii kulmiye soo galay buu wadani ka baxay ilaahay baa ummadda muxuu u jeedaa markaa wadani xisbiga wadani muxuu u jeedaa wuxuu haystaa xildhibaan aanu lahayn buu haystaa oo kuwii baarlamaanka wuxuu haystaa kuwii cid buu haystaa annaga way naga go'an tahay inay doorashadu dhacdo 2019 ma haysanayaan xildhibaanadeedii ma haysanayaan xeerkaa waa loo fududeeyey waa loo sharci ahaan jirin baa loogu magacaabay xildhibaanadeedii bay haystaan iyagoo aan weli doorasho baarlamaan galin war ummad yahay ma caqli baa caqliga may gashaa dadweyne oo idinkaan idin diibay caqliga may gashaa ma gasha caqliga in aan doorasho baarlamaan galin xisbi aan doorasho baarlamaan galin inuu maanta yiraahdo waan ku fadhiyaa kursiga
عبد الرحمن باوغيدين وحو كفديه 7 سنوod buu ku fadhiyay kursi aanu lahayn buu ku fadhiyay muddo 5 sanadood ku fadhiyay kursi aanu lahayn cidii u fudaysan waan gorayn tanaasulkan anaga sameeynay haddii wadani maanta xildhibaano in u cidi ay kursiga ku fadhiyi lahayn lagoon doorasho baarlamaan galin wuu qaylin lahaa kamanu hadheen wax alla wuxuu doonana uu sameyn lahaa dalkan u tanaasulay dadkan u tanaasulay shicibkan u tanaasulay xildhibaanadayadii buu aayar wadani ku fadhiya markaasuu doonay inaanay doorasho baarlamaan dhicin taasina waa qodobay waxaan ku darayaa Faysal Cali Waraabe ma geeyo in maalin walba inaan yaroon caadi ahayn intuu soo hor istaago kamaradaha iyo shaashadaha oo aan ka xumahay inay waxa dadka dhibaya waxa axsaabta dhibaya waxa ninka masuulka dhibaya waxa qofka islaamka dhibaya in saxaafaduna ay ku soo darto aan jeclaysan haddana waxa aan halkan kaga hadlaya inuu qofka muwaadinka ah ee doonaya inuu wax sheega inuu isagoo caadiya oo wanaagsan oo dhameystiran intuu kamarada yimaado uu dadweynaha wax wanaagsan u sheego laakiin qofku isagoo caadi ahayn inuu wax sheego oo wuxuu u sheegayaa ay ka turjumayso waxa maskaxdiisa ku jiray habeenimadaas uu la soo jeeday ma waanan ka xumaay calcantar baan ka xumaay ereyadii ku hadlayay waayo mu wanaagsan markuu ereyada lahaa nin fiican moohan markuu ereyada lahaa habeenimadii inuu soo jeeday way ka muuqatay inuu aan caadi ahayn way ka muuqatay waxaan saleeyahay inta badan waxaad ka hadashaa Puntland baad ka hadashaa Ali Cantarow waxaad ka hadashaa gobolada barigaad ka hadashaa anu nin reer Hargeysa waan ku garanayaa Hargeysa Dumburuq baad ka dagaysa ilaa maalintii aad dhalatay ilaa maantana Hargeysa joogtay abtigay baad la joogtay oo ku soo koriyay anu ma garanayo in aad maalin walba odayga ku adeerka Faysal Cali Waraabe aad aydo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi